وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخ waxaan ogsoonahay wadciga aynu ku jirno xanuunkan aadka u faafay coronavirus waxa dawladdu go'aan ay soo saartay in la joojiyo meelihii la iskugu imanayay lagu tukanayay majaamicda iyo musallayaadkii lagu tukanayay salaada ciid guriyahana dadku ay ku tukadaan horta waa maxay xukunka ay leedahay salaada ciid in guryaha lagu tukado si qaab nooceey baa loo tukanayaayo dadka ay guriyihii ugu tukanayaan salaada ciidda ahlucilmigu waa sheegeen horeba u sheegi jireen in guriga lagu tukan karo gaar ahaan waxa weeyaan ahlucilmiga qaba inay salaad sunna ay tahay in guryaha lagu tukan karo waa sheegi jireen oo qofku kalidu ku tukan karo ama jamaaca ay guriga ay ku tukan karaan dumarkii inay ku tukan karaan adoomihii waxa weeyaan inay ku tukan karaan qof ay dhaaftay oo salaad imaamkii uu ka hor tukaday sida qof seexday oo kale ama habsaamay ama qof ilaabay oo kale salahaan iyo qof aanay dhaafinba oo salahaan meel salaada ciid lagu oogayba qofkii salahaan ma joogo intuba guryahooda waa iskaga tukan karaan xaaladdan aynu ku jirana si gaar ah u fatwoodeen culimada caalamka ee waaweyn iyo golayaasha fatwada ee jira xanuunkaasi oo isu imaatinka dadka inuu ku faafo la ogaaday cilmiyan maadaama uu jiro inaan salaadii ciid aan la isula iman ee dadku guryahooda ay ku tukadaan waana sida dawladda amar ka soo baxay weeyaan ama gudida madaxweynuhu arintaasi uu xil saaray saxaabada rasuulkana ridwanullaahi calayhim waa ka sugnaatay in ay salaada ciid guryahooda ay ku tukadeen sida saxaabigii Anas ibn Malik oo kale radiyallahu anhu in mawlihiisa ahaayo Abdullah la oran jiray ayuu amray dumarkiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa oo dhan soo ururiyay inuu guriga uu ku tukiyo marka guriga waa ku ansaxaysaa salaadani oo garoonka in lala tagiyo masaajidka iyo dadka oo dhameeyay isula yimaadaan asixitaankeeda shardi uma aha qof qura xataa ayaa tukan kara oo salaad cadadka iyo tiradu xataa shardi ay u tahay maaha marka guriga marka lagu tukanayo sidee loo tukanayaa qofku wuxuu u tukanayaa sidii marka uu imaamka la tukanayo garoomada lagu tukanayo oo u tukan la uu tukanaya tireedii waxba iskama bedelayaan saxiixa oo labadii ragcadood ayuun bay ahaaraysaa xagga takbiiradii dheeraadka ahaana sidoodii bay ahaanayaan oo ragcadda hore takbiiratul ihraam oo ta lagu xidho dabadeed 7 jeer baa Allahu akbar oranaya ragcadda dambana markuu u soo kacay uu istaago ayuu 5 jeer Allahu akbar oranaya quraankana kor baa loo qaadayaa suuratul faatiha in la akhriyo iyadu waa rukun arkaanta salaadaasi kamida hadii qofku quraan dheeraadka uu ku darana waa shay sunna ah suuradaha uu nabiga kaleey salaatu salaam sida gaarka u akhriyo faatixada dabadeed waxa kamida suuratu qaaf iyo suuratu al-qamar اقتربت الساعة وانشق القمر أما بس سورة الأعلى هي سورة الغاشية نبي عليه الصلاة والسلام مرنا سورة ذها سو أخري مرنا سورة ذها سي أيو أخري مركا تكبيرتينا سيدي بالله ما يسان شيء قراءة الساس يقاب كاسي أي نقنسة حاجة خطبة مركا أي نقطة قفكو هدو كليدي تكنيو يد خطبة دي ما تشرتو وقف السوق اسمه خطبة دي وين تشرتو عيد له خطبة دينية لكن هدي دتكو أي جماعيين guriga baha ku tukanayaane mid kamidii hadii uu khudbadeeyo wax dhibaato kuma jirto oo mid kamidii uu khudbadeyn kara inta kalena iyagoo dhageysanaya wallahu a'lam jazakallahu khairan wa barakallahu fiik waxaan ku soo gabagabeynaa sheekh guud ahaan maxaa sunnah ama dhaqankii nabiga ahaa in la sameeyo maalintan ciid maalinka ciida waxyaabaha sunnah waxa kamida awalan sayna horaba u sheegnay takbiirta in la qaado marka waqtigeedu uu soo galo ilaa salaada ciid laga gelayo in takbiirtaasi la qaado kor loo qaado qof waliba dhinaciisa uu kor uga qaado waxay kamid tahay adkaarta ay soo aroortay in kor loo qaadi karo ama dhikriga kor in loo qaadi karo ay soo aroortay waxa kamid ah sunnayaasheeda in la maydho oo qofku isnadiifiyo dharka ugu fiican ee qofku uu haysto inuu xidho طيب iyo udug wixii uu helayo qofku inuu ismariyo waxa fiican meesha ciid lagu tukanayo marka garoomada lagu tukanayo kale inuu qofku u lugeeyo ayaa fiican saasoo kale wadadii markii hore uu meesha ku sii socday uu maray midaan ahayn inuu ka soo noqdo ayaduna saasoo kale kamida sunnayaasha waxa kamida ciidul fitri oo kale oo ciid ramadaana qofku salaada horteed inuu cuno oo si Abdullah ibn Umar uu wariyay fi Bukhari wa Muslim nabigu kaleey salaatu wasalaam kana yaakulu tamarat
qabla an yakhruja ila salaa intaanu salaada u bixin xabado timir ayuu cuni jiray riwaayadka qaarkood waxaa kusoo arooray wayajcalhuna witran tiro kala dhiman ayaanu ka dhigi jiray marka qofku xabad timira 3 xabadood timira ama 5 almuhim tiro kala dhiman inuu cunaa iyaduna waa sunne halka ciidul adxa aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba cuni jirin ilaa uu salaada uu ka soo noqdo kadibna udxiyadiisii wax uu ka cuno markaa sunnayaasheeda inahaasi aynu tilmaanay ayaa ka mid ah ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu khayrkii wanaaggeena waafajiyo inagana aqbalo جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أديات بدو ما سنت شيخ الله أكبرك أيوه وأحسن الله إليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دونيسا أعماش ونكسر من يكوف الله فرل يصنع ما دونيسا حمانتا نفطا دينا تكرب تواد كقوي ساري كوف الله عرب كاغا حسك إلهيها كقوينات أنا كن مكثرا من ذكر الله وحد نقطة قفر بدينيا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.